dibadda aynu barnaamijka idinkugu hayno ayna u dhaqaaqna dhinacaas iyo afgooye Cabdiwali Cali online ayaa warbixin ka diyaariyay tartamo kubad cagyaro oo lagu ciyaaro degmadaasi tartankan waa mid kamid ah kuwa ugu xiisaha badan dunida waana ciyaaraha fuustalka loo yaqaan ama garoomada yaryar ee salaxa lagu ciyaaro Cabdiwali waxa garoonkan oo kamid ah garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta ee degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose galab waliba ciyaar mini football ah ay ku dhaxmari doontaa 10 kooxood kuwaas oo koox waliba dhankeeda ay rajaynayso in ay qaado koobka dhex yaalo kooxahan mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagyaraha ee degmada afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee ciyaartan soo qaban qaabiyay ayaa galabta daafuray waxa ayna ka warbixiyeen qaabka ay ciyaarta u socon doonto waxaan noo suurta gashay in aan isugu nimaano koobka furmaayo garoonka albirri koobkaasi oo soo qaban qaabiyeen xiriirka cusub ee kubadda cagyaraha degmada afgooye koobkaas oo loogu magac diray koobka kooxaha kubadda cagyaraha ee degmada afgooye waxaana ka soo qayb galay koobkani 10 kooxood oo ka dhisan xaafadaha degmada afgooye haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha kubadda cagyaraha degmada afgooye Fahad Cabdullaahi Sheekh Xasan in uu kalimateen nooga yiraahdo ama khudbad uu nooga soo jeediyo furitaanka koobkan walaas Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh oo maanta noo soo geliyay inaan furno ciyaarihii min football Soomaaliya koonfur galbeed qaybteeda degmada afgooye waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo bulshooyinka degmada afgooye oo sida xamaasadda leh ugu soo qayb galay iyo odayaalkii degmada ciyaartooyda cuslaa hore u fadhiisteen waxaan kaloo rabaa inaan waqtigoon ugu gaawan awgiisa waxaan rabaa inaan maanta meeshaan xafladaas aan ku furno ciyaariyeen waa noo furan yihiin waxaan rabaa inaan meesha ku soo xuso ciyaartooydii halyeeygi macalinkeena hore inaan ku soo dhaweeyo macalimo raxmatullaahi barakaatu waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ciyaartooydii aan soo tababaray oo maanta ayag inay wax wadaan oo wax maamulayaan oo degmadii aan ku dhashay degmadii aan ku soo koray ilaa qaran aan ka soo wadi marka maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarahan aan furo marka waqtina waan hayaa marka waxaan jeclahay ciyaarihii inaan macnaan noo bilaawdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa markii ugu horeysay horta ciyaartooy oo garoonkan ay ka bilaamayso oo juniors ah loona baahan yahay in degmada sidaas loogu dhiilgariyo maadaama ay ahaan jireen garoomo waaweyn lagu ciyaari jiray hadda waxaan ka sii jecelnahay garoomadan yaryar si loo arko dhalinyaro wanaagsan oo mustaqbalka dambe ee jiilka dambe ee u noqon doonta kuwa qaranka uga ciyaaro sidaa daraaddeed waxaan dadweynaha iyo dadka martida leh ee sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay nagu dhiirigeliyaan in dhalinyartaasi wax loo qabto si kastaba ha noqotee insha allah waxaan rajaynayaa koobkaasi inuu noqon doono mid aad iyo aad loogu guulaysto waxtarna u leh degmadana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd aadan ugu dhawahay waa wax lagu farxo in dhalinyarada degmada ay maanta mas'uuliyaddeeda qaadaan kooxdan kubadda cagyaraha ama mini footballka loo yaqaano inay martigeliyaan oo degmada u qabtaan ay isku soo aruuriyaan dhalinyarta xaafadaha ilaa iyo heer 10 kooxood waxaan kaloo sii rajaynaynaa intaas in ka badan inay qaban doonaan maadaama ay yihiin dad deegaanku u dhashay firfircoon wax garad degmadan wax badan ka bedel doona insha Allah waan soo dhaweynaynaa magacaaga iyo kooxda awood waan dhawahay magacayga waa Xasan Ismaan Maxamed kooxda aan wato waa xidigaha oo aad iyo aad oo magac weyn la yaqaano haddana waxaan rajaynaynaa koobkan inaan dheelno inaan dadka bilaabanaan waa ognahay waxaan ku sii rajaysanaynaa inaan guul gaarno hem waxaan leenahay koobkan inaan qaadno dilada ka badiyo maasha Allah bunuun cad madow waa qoran yahay wax kasto waa raalina kuna bunuuni waa ku soo galna cad madow inuu leeyahay waa sabab wax walba darajo leh waay taana ku soo dhawow magaca ay kooxda awood waa ku dhawaay mudane kooxdeeda New Star maxaa rajaynaysaa maanta waxaan rajaynayaa inaan guuleysto kooxdeeda 3 dhibood aan u qaado haye hadii la guuleysto wallahi bila ila agtay qoran tahay taas diilniga haye waxaan rajaynayaa in maanta aan guuleysto 3 dhibood daafurka ciyaartan oo isku arkeen kooxaha xidigaha iyo FC New Star ayaa waxa ay ku soo ilaatay 2-1 waxa ayna guusha raacday kooxda xidigaha oo 2 gool ku badisay Cabdiwali Cali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose